ummadda Soomaaliyeed waxay ka mid tahay ummadda muslimiinta weliba kuwooda ugu firfircoon aad iyo aad kaalin nooceeha ay ku leeyihiin fidinta dacwada maadaama ay tageen dadka ugu badan ee degan ay yihiin Christian ama dad diin haysan kaalinta leeg ay ku leeyihiin fidinta diinta iyo dacwada ما شاء الله waa su'aal runtii aad u fiican waaye waxyaabaha positive-ka oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay markay qurba ay tagaan waxa meel kasta ay tagaan waxay ka dhisaan masaajid meel kasta xitaa ummadaha kale way u qoraan ii sheeg masaajid ay ka dhisaan hadda gobol kasta Mareykanka waxaa ku yaal ugu yaraan 2-3 masaajid ay Soomaaliya dhistay masaajiday ka dhisaan madaaris ay ka dhisaan maasha waxyaabaha lagu amaano waxaa ka mid ah in gabdhahooda xijaabka ay ilaaliyaan hadda gabdhaha Carbeed iyo gabdhaha Muslimaad kale wadamada kale ka imaado markay qurbaha imaadaan xijaabka iskaga tagaan laakiin Soomaalida maasha Allah gabdhahooda xijaabka way ilaaliyaan Soomaalida masaajiday ka dhisaan waa dad ducaad ah dadka diinta ugu yeera ii sheegay masaajidada ku casuuma dadka aan muslimka ahayn waxaad arkaysaa dad badan oo cadaan oo aan islaan ahayn masaajidada imaado oo shahaadada loo qabto marka dhankaasi waxaan dhihi karaa Soomaalida maasha Allah door muuqda ay ugu jiraan haddana waxaa aad loogu amaanaa Soomaalida waa dad Quraanka aad u xifdiya markii la gaaro soonka masaajidada xitaa masaajidada ummadaha kale gacanta ku hay Bakistaaniyiinta iyo waxa taraawixda tujiya dad oo Soomaali ah marka Soomaalida maasha waa dad Quraanka xifdiya markii qurbaha tagaan meel kasta ay tagaan masaajidii ka dhisa oo gabdhaha xijaabka ilaaliya waxyaabahaas maasha Allah positive-ka ay leeyihiin xitaa ummadaha kale ay u qoreen ay ka mid tahay maasha Allah adraxiin si loo gaaro qurbaha si loo gaaro ama Yurub ama America siyaabo badan lagu tagaa qaabaha lagu tagay waxaa ka mid ah tahriib ayaa ka mid ah dadka tahriibay maaragtay idin soo gaaray waxa ay ka sheekeeyaan dhibaatooyinka ugu badan ay la kulmaan iyo markay xagga tagaan in la aqbalo in la qaato iyo maaragtay halisaha ku jira halkaas dul istaag إنه هرت أنت تهريبك وحنقول قاعدين 3 قيبات عمل قفك مركو رب إنه تهريبه يعني خطرات أقول لك ما ووجهها قار كود رنتي خطرات أسبح لقي عبد المين كل إنسان قارك إلهي بدبادين مركي ماشي ربين أي جارانا وحياة عقبتها إلى كل ما أوفر أول هرت تهريبك ما أرين في عنيا من بناية الدين تا نهاس إن شاء الله نتابعنا نبي إله إنه horta sanadihii hore tahriibka waxaa la xiisi jiray in Yurubta loo tahriibo wada dheer baa la mari jiray Suudaan ilaa Liibiya marka saan la socono Suudaan iyo Liibiya dhexdoodana saxaro weyn baa la marayaa marka saxaro oo runtii dad badan oo Soomaali dad badan oo tahriibiya la meesha ku dhintay magafaa jiro oo dadka iska qabsado oo dad magafaa gacanta u galo in la jirdilo la dhibaateeyo haddana badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga u dhaxayso dabcan waa ognahay in dad badan doomaha ay ku quusteen ay ku dhinteen marka khatar far badan weeye sanadahan waxaa ii sheegay focus-ka loo soo wareejiyay tahriibka lagu imaado Mareykanka dadka darbiga soo booda sida la dhaho darbiga soo booda marka inta aadan Mareykanka aadan soo gaarin waxaa la soo maraa wadda aad u dheer ka dheer badan aad ugu dheer badan aan dhihi karno kana khatar badan wadan badan Latin America waa inaad soo martid Brazil, Colombia, Panama, Guatemala, Mexico wadan badan aad soo maraysaa marka wadamadaasi dhaxdooda waxa jira wax loo yaqaan jungle ama saxarooyinka hadda ii sheegay saxarahaas u dhaxeeya Colombia iyo Guatemala camal ii sheegay waa meel lagu yaqaan masas far badan leh waa loo og yahayba oo aan loo dhawaan karin marka masaskaasi waxay dileen dad badan oo meesha ku tahriibay Latin America iyo Soomaaliya ahaato waxaa jira dad dad organ oo group isku xiran oo mafia ah oo cartel loo yaqaano oo drugska waxaas iyo dadka ka ganacsada marka meelahaas ay ku jiraan dadkay qabtaan ii sheegay xitaa dadka kaliya inay kala baxaan xabsi ay geeyaan runtii aad bay khatar u leedahay marka dad badan oo Soomaali ah baa wada oo dumar iyo iskugu jiro caruur baa meeshaas runtii dhibaato fara badan ka soo wajahay horta khatartaas uu leeyahay tahriibka qaarka Ilaahay badbaadi oo khatartaasi ka soo gudbana markay Mareykanka ay darbiga ay soo boodana waxay dhibaato badan ay ka wajahaan dhanka sharciga ilaan Mareykanka hadaadan degnaansho aadan haysanin green card-ka haysanin sharciga aadan haysanin awood uma leed inaad shaqaysatid awood uma leed inaad wax baratid waxa lagu leeyahay iska noolow intii process-kaada uu ku socdo iska noolow sharci ma jiro wax ma jiro marka qofkii qaraabadiisa inuu ku noqdo culays uu ku noqdo ma shaqaysan qofkii wuxuu noqonayaa qof yani ku jiro xabsi korka fun waxba qabsan karin hadaadan shaqaysan karin wax baran karin waxba qabsan karin hadii guri iska fadhinayo marka waa dhibaato
qaarna waxaa lagu qabtay ayagoo baasbooro ajnabi wata matalan Soomaaliya laakiin baasboor Ethiopian baasboor Kenyan wata markii lagu qabtayna in dib loo soo tarxiilay Canada Mareykanka dad oo baasboorooda dib loo soo tarxiilay marka inahaasaan aragnaa dad sharciyada dhibka hayso qaar waxaa leeyahay maxkamadaada 4 sano 5 sano kadib waxaa lagu leeyahay hearingka hataa maxkamad in sharci la siinayo in la diidayo ilaahay og waxaa lagu leeyahay 2027 waa maxkamadaada inta sharci qaadanaya marka nolosha adkeyd sharci la'aanta ahayd haddaad nasiib leedahay warqad yar aad ku yara shaqaysan kartid lagu siinaa laakiin deganaansho ma lihid xuquuq ma lihid sharci ma lihid runtii aad looguma jecla dadka derbiga soo booda ama dadka sharci darada qaab sharci darada wadanka uu ku soo gala marka tahriibka khataradaas uu leeyahay si guud ahaana tahriibka diinta islaamka markaan fiirino arrin banaan ma aha ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka khatar aad u jeedid nafsadaada ha ku ridin nafsadaada tahluka ha ku ridin waadoo isbiimeeyay waay marka ilaahay saas uu leeyahay marka qofka muslimka ah marka uma banaana inuu khatar u arkaa u bareero nafsadiisa u haligo nafsadan ilaahay kugu amaaneystay waxaa waajib kaa saaran inaad ilaalisid laakiin khatar arka haddaa u bareertid waa waxa waaye ii sheegay arrin khatar diimada ku jirto marka tahriibka waxaan leeyahay halaga waantoobo maasha Allah maxaad kula talin lahayd dadka hadda socdaalka ay boorsadu xiran tahay ee raba inay u tahriibaan Amerika kulley waa maqasheen khataraha aan soo sheegnay marka waxaan dhihi lahaa horta khataradaas la iska ilaaliyo tahriib wax fiican ma aha horta wadanka hala aamino risqan ilaahay subxaanahu wa ta'aala qoray qadaray marka horta wadanka hala aamino isku day inaad wadanka isbedel aad ka samaysid kulley qaab sharciyeysan haddaad heli kartid waa qaab fiican laakiin tahriib wax fiican ma aha nafsadaada ha biimeynin nafsadaada ha haligin waxaan dhihi lahaa tahriib halaga waantoobo tahriib halaga waantoobo wax fiican ma aha su'aasha u dambeysay ee barnaamijka haddii aan ku dhaho hal qof salaan oo halkan salaan uga dir oo ehelkaaga ahayn yaa salaami lahayd wallaahi su'aashaas waa su'aal yar adag runtii waxaan salaami lahaa dhammaan asxaabta iyo walaalaha aan isnaqaano qof allaale qofkii muuqaalkan daawada oo yaqaana runtii salaam baan hawada soo marnaya anoo hadda magac aan dhehaynin hibil aan dhehaynin hiblaayo aan dhehaynin dhammaan asxaabta dal iyo dibad jooga codkayga soo gaari doono runtii aad baan u salaamaya insha Allah aad baan ugu mahadsan tahay inaad jaaniskan ay siisid in wareysiga aan bixiyo maasha Allah runtii channelkaaga dhaymaale waa ku xiranahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa channelka inuu noqdo uu biyahay channel insha Allah wax badan umada loogu faa'iideeyo dadka channelka ku xiran waxaan dhihi lahaa channelka kor ha loo qaado channelka laga warhayo subscribe ilaagtana dhinacin waa insha Allah maasha Allah aad ay waasan tahay barnaamijkeena maanta halkaas ayaan ku soo weynaas sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh